agaasimaha cisbitaalka dhimirka magaalada Gabiley oo ay howlwadeennada telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV waraysi khaas ah la yeesheen waxa uu sharaxaad ka bixiyay xaaladda cisbitaalka waxaanu sheegay in cisbitaalku marayo xilligan meel wanaagsan sidoo kale waxa uu sharaxay xanuunka dhimirka iyo siyaabaha loola dhaqmo isagoo ka hadlaya ayaa waxa daladiisii kamid ahaa maskaxdu waa qayb kamid ah jirka qofka bani aadamka qofku uu xanuunsan karaa uu ladnaan karaa uu ka caafimaad karaa balse wuxuu u baahan yahay environment wanaagsan oo qofku ku sugnaado wuxuu u baahan yahay dhakhtar si joogto ah loola macaamilo qofkaasi xaaladiisa la socdo kaalinta saddexaad oo u baahan yahay waa kaalintii bulshada iyo qoyska uu qofku ku dhex nool yahay dadkan in la aqbalo si qofku ka loola macaamilo waa halka bulshadu iyo dadku ay ka liitaan weeyaan dawadan qofka in loo ilaaliyo sida xanuunada kale oo qofka loo daryeelo loola tacaalo dadku inay qof u aqbalaan oo dawadiisa u joogteeyaan ayaa muhiim ah agaasimaha cisbitaalka dhimirka ee magaalada Gabiley Dr. Mukhtaar Axmed waxa kale oo warbixin naga siiyay dadka bukaan socodka ah ee dibadda dawooyinka ku qaata oo uu sheegay dawooyinkaasi inay iibsadaan isla markaasina ay u baahan yihiin in ay helaan dawooyin bilaash ah leeyahay wax kamid ah oo mar walba aan xusno waxa weeyaan waa dawooyinkaas oo qiimahoodu ay qaali yihiin oo aan si joogto loo helayn mar walba oo waliba taasina waxay nagu kaliftay dadka tiradooda 1000 qof ay kor u dhaafayaan oo qaybta bukaan socodka ka duwan gashan oo iminka aan dawo aan u hayn oo aan u qorno kaliya warqad yaroo dawadan ugu qorno prescription taasina waxay sababaysaa dadkii in loo baahnayn dawadooda ay joogto noqoto inay dawadu ka kala go'do qofkii uu mar labaad iyo mar saddexaad ba xanuunsado run ahaantii anagu garanayno xaaladda gobolka iyo dadkan la dhibaataysan bukaanada ka buko maskaxda waxay u badan yihiin dad aad u danyaro dawooyinka aan iibin karin aan goon karin sidoo kale agaasimuhu waxa uu baaq u diray qurba joogta ganacsatada iyo cid kasta oo wax ku soo tari karta cisbitaalka dhimirka dhanka dawooyinka in ay ka caawiyaan ganacsatada haday tahay dadka qurba joogta maxsiniinta ka soo jeedo Somaliland gudaha iyo dibaddaba waxaan u dirayaa baaq in dawooyinkan macal dadka bukaan socodka ee guryahooda joogo dawada qaato inay dawadoodu bilaash noqoto waa wax laga maarmaan waxaana ku bixi karto markay ugu badan tahay lacag 2000 ilaa 3000 oo dollar aan ka badnayn ayaa ku baxaysa hadii dadkaas oo dhan gebi ahaantoodba loogu talagalay in dawo bilaash la siiyo ugu dambeyntii waxa uu agaasimuhu baaq u diray shucuubtan ee ku dhaqan Gabiley iyo Wajaale oo ugu baaqay inay ku ridaan sanaaduuqda ay hoteelada dhigeen lacagta gargaarka qorshe kale inaan miisaankan qofku ku cabirayo culayskiisa miisaan baynu ag dhignay gaar ahaan maamuus intaan miisaanka dhignay waxa ka soo baxo waxyaabihii hore u bixi jiray ka badan marka sanaaduuqda caawimaadkana inoogu dadaala waa Absalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley